shir lagaga hadlayay kobcinta garaadka aqoonada haweenka xildhibaanada iyo go'aan qaadashada tayada hogaamineeda haweenka xildhibaanada ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Jigjiga. Shirku ay soo qabanqaabiyeen xafiiska arrimaha haweenka ee dowladdeegaanka Soomaalida isla markaana iska kaashanayeen xafiiska maaliyadda ee dowladdeegaanka ayaa ka qabsoomay madasha shirarka ee Qaryaandhoodaan ee magaalada Jigjiga. Yeelashada damiir dhammaystiran iyo kobcinta aqoonta waxa uu ka mid ahaa halku-dhigyada shirka loo qabta haweenka xildhibaanada. Madashu ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socda xisbiga barwaaqo laantiisa deegaanka Soomaalida, xafiiska maaliyadda, xafiiska arrimaha haweenka ee dowladdeegaanka Soomaalida ayaa ku saabsanaa kobcinta garaadka aqooneed. Ugu horreyntii waxaa furay shirka wasiirka xogeenka xafiiska arrimaha haweenka Marwo Muniiro Xuseen. Geesta kale waxaa ka hadlay madaxa abaabulka xisbiga barwaaqo Mudane Faysal Rashiid. midna waa ka cudud daaranayaa ka soo baxay shirkan ku jiray inaan ma hore leeyahay ixtiraam darro iyo xuquuq darro ma ahay aad iyo aad loo qoranayo oo kala caaysa aad iyo aad gabagabadii shirkana waxaa ka warbixiyay ujeedka shirka wasiirka xogeenka xafiiska arrimaha haweenka Marwo Muniiro. anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xafiiska arrimaha haweenka maanta waan u qabanay tababar gabdhaha xildhibaanada ee deegaanka heer federaal iyo heer deegaanba kaasoon ka leenahay ujeedadanada in aan kor u qaadno garaadka hablaha haweenka qaybta ka qaybgalka siyaasadeed oo waliba khaas u ah dumarka sidii loo dhisi lahaa garaadkooda iyo loo bari lahaa shuruucaha hore xeeroosadyada iyo in kor loo qaado ka qaybgalka siyaasadda iyo garaadka dumarka. Muxudiin Aadan Maxamed, Muxudiin Xarago, Telefishinka RTN, magaalada Jigjiga. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus. marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta. ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara. ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawlaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. in ka badan $126 oo caalamka ah ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus, shirkado iyo shakhsiyaad intaba. adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud. mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. gacaliso waa ku salaam marabay awal lacagti biilkii maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani intaas sana ku dubaray maanta dad lacag heen argaaga dhaafi macquul ma alxamdulillah ma had iskale yasar allah ila soo cus aan u sheega هل حاجة وحوي لبنا كنت توسي شافتان وكأ ربان مرك حوجه يدل قام. بار حلا نكون هاي ما كل ما. هاي شيء. أخبار فرح الله نكون هاي ترى عنا أخبار فرح الله نكون هاي يشك هذا. إذا ما هو. حرت ورا أنا أخبار فرح الله وش أو كوجو ليش. sometimes waxaan ku guuleystay ina ooyay iga soo dhumar dambe ima burinaysto bajaajan ku guuleystay anaa ku dhahay dib dambe ima burinaysan ku dhahay dhagaan ku dhaga bajaaj lacagtan kale saariga haya farxadda ii sheeg anna waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahaba shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guuleyso macmiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Somtel si aad ugu guulaysato 10,000 oo hadiyado ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.